ciidamada Ruushka oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa ka dhex dagaalamaya gudaha magaalada caasimadda u ah dalka Ukraine ee Kiev. Caasimadda Ukraine waa ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay dhowr xaafadood oo magaalada Kiev ka tirsan kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada Ruushka ay madaafiic ku garaaceen aqalka madaxtooyada dalka Ukraine iyadoo dagaal uu ka socdo wadooyinka qaar ee caasimadda. Duqa caasimadda Vitali Klitschko ayaa sheegay in dagaalka ka socda Kiev inay ku dhaawacmeen 35 ruux oo ay 2 caruur ah ku jiraan. Mas'uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku jiraan isdifaac xoog leh oo ay kaga hortagayaan weerarka kaga imaanaya ciidamada Ruushka. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inay marnaba isdhiibi doonin, waxaana uu intaa ku daray inuu ugu baaqayo dadka wadankiisa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan. Muuqaalo warbaahinta ay baahisay waxaa ka muuqda qiic ka baxaya xaafadaha qaar ee magaalada Kiev iyo dhismooyin burburay. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka 3 cisho ka socda dalka Ukraine. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegay inay burburiyeen qiyaastii 800 oo xarumood oo ciidamada Ukraine lahaayeen. Dhanka dawladda Faransiiska waxay sheegtay inay dalkaasi u dirtay diyaarado sida shixnado saanad ciidan ah oo ay ugu talagashay ciidamada Ukraine. Diyaaradahaasi oo uu amray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta tegi doona caasimadda Ukraine. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in qiyaastii 100,000 oo ruux ay ku barakaceen dagaalka Ukraine tan iyo markii uu bilowday Khamiistii la soo dhaafay. magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay waxaa ka dhacday dhacdo la yaab ku noqotay dadka ku nool gobolka Banaadir kadib markii haweeney ee si arxan darraha ay u dishay gabar iyadoo ay dhashay oo 9 sano jir ahayd. dhacdadan ayaa ka dhacday Argada ee degmada Wadajir, waxaana dadkii dariska la ahaa haweeneyda ay sheegeen in guriga dhexda ay ka soo xiratay kadibna halkaasi ay ku dishay gabadhii ay dhashay. dhaawacyo badan ayaa korkeeda ka muuqday gabadha, lamana oga waxa ku qasbay in hooyadan Soomaaliyeed ay disho cunugteeda. ciidamada ammaanka degmada Wadajir ayaa xiray haweeneyda falkan ku dhaqaaqday. hooyo Madiina oo dhashay aabaha dhalay gabadha la dilay oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in dilkaasi uu dhacay si arxan darro ah. maalintii Khamiisay soo wacday waxay dhahday gabadhayda iiga leexo, gabadhaada aniga iyada isma arkin lahay, balse haddaan arkay anaa weydiiha waadii imaana. aan u tegay, markaan u tegay gabadhi awdayaan dhahay. waxay dhaheen gabadhii barafalo cabaara sugay maqribkii ka soo baxay. aniga masuul kaliya anaa soo wacday maqrib soo tukada. maqribkii kan tukada waan wacay, waxaan gabadhi ma imaatay. waa imaatay hal baraf u dirsaday, 2 barafay ii keentay. hayba hadday imaato qeyr waayaan eri. gabadhu markaas ilmaheedu waxay sheegeen cadeeyeen inay sariirta hoosteeda ku jirto iyadoo meydad ah. albaabkan gargaraacay waa u xiran yahay. gargaraacay waxay tiri mawliida labisanaayeen gabadhii ay la sariirta lagu sii hoos cabeeyo haya. waayahay banaanka istaagay, hawsheed markay dhamaysatay albaabkii iga furtay, waan galay. haddaan galay waa fariistay cabaara gabadhii sugay, waa gabarneyda jala subax 4 saac ay soo wacday. maxaa darnaa asma way dhima, maxaa ku dhacayaan dhahay. waxaa ku dhacay shuban iyo mataga ku dhacay. saakaya qaaday, xalay ma qaadin, aniga waa cabsaday. maxaa xalay noo soo wici weysaan dhahay. annaga kula qaadi lahayn miyaa madaxa laga jibinayaa oo la dilaya. hadda ma dhimatay waayahay Allah u naxariiso. meydka soo qaad ee keen meydka anagoo qaraabadaasaan geed hoosta u fadhino waa soo wada ulaad. markii dambe waxay keentay meydka waa lii diiday. yaa ku diidaa dhaha meydka isbitaalka ii diiday. ilaa jirdilka ugu arkay waa si xun u dilantay. xala markii la dhaqaayo korkeeda waa dintahay saas u dhahay. waa la dhaq waay sidaan saas markay tiri cabaara la joogay saldhigga Hodan ayaa soo wacay. wuxuu dhahay gabadhaas ma taqaanaa dhahay. gabadhaas waa xiran tahay saldhigga Hodan imaad. meel saldhigga daantay waxaa la Madiina loo gudbina naagta waa xiran tahay. isbitaalkaana soo wacay dhibaatada haysta gabadhan si dhiig aan la marsiinaya. xalay 6 saac aan dugnay gabadha meydkii aan dilkan ayaa qayb ka noqonaya dhacdooyin aan la maadin, kuwaas oo waayadii dambe siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada caasimadda ah iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolada dalka.